ku soo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xildhibaanada laga soo doortay gaalkacyo u adeegsanaysa in ay meesha ka saaraan madaxweyne Xaaf oo weli sheeganaya inuu yahay madaxweynaha Galmudug maadaama haatan uu jiro madaxweyne la aqoonsan yahay sida aan xogta ku helnay xildhibaanada loo diray Xaaf inay warcad ka keenaan waxaa ka mid ah senator Cabdi Xasan Cawaali Qaybdiid oo ay isku heebiyeen Xaaf isla markaana dhaqaale badan ay ku siisay filla Soomaaliya sidii uu madaxweyne Xaaf u qancin lahaa senator Cabdi Qaybdiid oo isaga laftiisa aan raali ka ahayn waxa ka socda Galmudug iyo sida ay dowladda u maareysay ayaa haddana ku qasbanaaday in uu taageero hanaanka ay raaliga ka yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ee lagu dhisay magaalada Dhuusamareeb Xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo kaga dhawaaqay xildhibaano kuwaas oo ugu dambeyntii doortay gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne ku-xigeen wuxuuna Axmed Ducaale Geele Xaaf shaaciyay in uu yahay madaxweynaha saxda ah ee Galmudug madaxweynaha la doortay ee Galmudug oo ay aqoonsan yihiin dowladda federaalka iyo beesha caalamka Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay inuu la imaanayo siyaasad cad oo wax ka bedelaysa habdhaqanka Galmudug dhanka kale qiimeyn sanadle ah oo toddobaadkan oo ay soo saartay Global Firepower oo ah madal lagu qiimeeyo awoodda ciidamada dalalka ee tiro saanad iyo saadba ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gelisay kaalinta ugu hooseysa oo aan u qalmin taariikh magac iyo maamuus ahaanba qiimeyntan oo lagu sameeyay ilaa 138 dal oo caalamka ah Soomaaliya ayaa waxay ka gashay kaalinta 136aad waxaana ka hooseeya oo kaliya dalalka Liberia iyo boqortooyada yar ee Bhutan labadan dal ee Soomaaliya ka hooseeya mid ka hor waxaa ku nool oo kaliya 4 milyan ciidankoodana waa 2,000 oo qof oo kaliya halka Bhutan ay ka yartahay 1 milyan ciidamadoodana lagu qiyaasay 2,000 oo kaliya qiimeyntan ayaa waxaa kaalmaha 10 ugu sareeya ay noqdeen sidan kaalinta koowaad waxaa galay Mareykanka labaad Ruushka saddexaad Shiinaha afraad Hindiya shanaad Japan koonfurta Korea Faransiiska Ingiriiska Masar iyo Brazil dalalka Afrika iyo bariga dhexe ee Carabtaba waxaa hoggaanka u haya dalka Masar dalalka kale waxaan ka xusi karnaa Turkiga oo 12aad galay Iiraan oo 14 Pakistan oo 15 Israa'iil oo 18 waqooyiga Korea oo 25 Ciraaq oo 50 Suuriya oo 55 Itoobiya 60 Suudaan 76 Kenya 84 Uganda 86 Qatar 90 iyo koonfurta Suudaan oo gashay 117 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isniintii ka hadlay shir madaxeedka midowga Afrika ayaa sheegay in cunaqabateynta hubka dalka saaran ay keentay dhibaato xoog leh isagoo sheegay in argagixisada ay kula dagaalamaan hal gacan oo xiran Farmaajo ayaa waxa uu xusay in loo baahan yahay in qorshaha lagu dhimayo AMISOM ay barbar socoto qorshe kale oo lagu dhisayo ciidanka xoogga dalka oo la qalabeeyo madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu qayb ka yahay guuldarada ah in aan weli la dhisin ciidan qaran oo tayo leh marka loo eego fulin la'aanta heshiiskii Security Pact ee lagu saxiixay London isaga oo 3 bil jooga xafiiska iyadoo oo lagu heshiiyay dhismaha ciidanka qalabka sida bixitaanka AMISOM maalgelinta ciidamada iyo kaalinta Soomaaliya iyo beesha caalamka ee hirgelintiisa tirada ciidamada qaybinta ciidamada ee dawladda iyo maamul goboleedyada taliska ciidamada iyo mas'uuliyadda dawladda iyo maamul goboleedyada beesha caalamka ayaa waxay soo dhaweysay heshiiska siyaasadeed iyo heshiiska qaabeynta amniga qaranka waxaa lagu taliyay in laga sii wada hadlo meelaha aan weli laga hadlin ee siyaasadda waxaa ku jira maalgelinta ciidanka iyo sida ay tahay in lacagta ciidanka u qaybsadaan Soomaaliya iyo beesha caalamka in beesha caalamka ay taageero dhaqaale iyo mid qalab ah siiso Soomaaliya 4 sano ee soo socota 3 sano kadib arrimahaasi waxba lagama qabanin mana muuqato in 2020 la fulin karo taasi oo ku tusinaysa in Soomaaliya oo ay ugu horeyso dowladda federaalka ay mas'uul ka tahay kaalinta iyo sharaf dhaca ciidanka xoogga dalka uu ka galay qiimeynta Global Firepower dhanka kale ciidamada Puntland ayaa saaka toogasho ku fuliyay laba ka mid ah 3 nin ee lagu helay kufsigii iyo dilkii loo geystay Caaisha Ilyas Aadan oo 12 jir ahayd dhacdadaas oo si weyn u taabatay guud ahaan dadka Soomaaliyeed raggan ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ahna caasimadda gobolka Bari labada nin ee la toogtay ayaa kala ahaa Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige halka muddo 10 cisho ah dib loo dhigay toogashada Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame wararka ayaa sheegaya in sababta xukunka toogashada looga reebay ay tahay in uu dalbaday aabaha dhalay Caaisha Ilyas Aadan toogashada lagu fuliyay raggan ayaa horey loo sii ogaa waxaana 12 bishii hore shaaciyay xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Puntland dad badan ayaa si aad ah u soo dhaweeyay inay cadaalad hesho Caaisha Ilyas Aadan oo bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay 2019 la isugu daray kufsi iyo dil taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan Saadaq John ayaa ku dhaqaaqay talaabadii ugu xumeed ee lagu cunaqabateynayo dhalinyarada ka shaqeysa sarifka lacagaha qalaad ee habka online-ka ah ama loo yaqaan Forex shabakada Sirta Media ayaa loo xaqiijiyay in Saadaq Cumar Xasan Saadaq John taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir uu xali garaacay qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysa mihnadaasi ayagoo ku shiraya Hotel Jowhar ee magaalada Muqdisho fariimo uu la wadaagay qaar ka mid ah maamulayaasha shirkadaha Forex ayuu hore ugu sheegay in uu ka rabo lacago haddii aysan bixinin uu ka xirayo shirkadahaasi waxaana arrintan iyo horseedi kartaa shaqo la'aan soo wajahda dhalinyarada mid ka mid ah dadkii xalay sida xun loo jirdilay ee ka mid ahaa xubnihii ku shiraya Hotel Jowhar ayaa shabakada Sirta Media u sheegay 3 sano ka hor ayaan jaamacad dhameeyay intaasna waa shaqo la'aan
hadda oo aan bartay xirfad forex in la igu dilo maxaad u shaqaynaysaa dowladda federaalka ayaan jawaab ugu fadhinaa sidoo kale shabakadda sirta media waxaa loo xaqiijiyey in go'aankani uu yahay mid u gaara taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir saadaq john isla markaana aan la ogeyn madaxda ka saraysa waana fal aad loogu xumaado in ka badan 50 xarumood oo ka shaqeeya sarifka lacagaha qalaad ee forex ayaa magaalada muqdisho ka furan waxaana ka faa'iideystay boqolaal dhalinyaro ah iyo dad maalgashadayaal ah saadaq john ayaa sidoo kale lagu xusuustaa in dhowr sano ka hor uu magaalada muqdisho si arxan dara ugu gumaaday ardaydii dhiganaysay iskuulkii axmed gurey sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa wada qorshe ay ku xirayso shirkadaha ka shaqeeya arrimaha sarifka lacagaha ee qaabka online-ka ah ee loo yaqaan forex ila wareejo ayaa inoo xaqiijiyey in arrintani ay dowladda saacadaha soo socda war-saxaafadeed ka soo saari doonto isla markaana ay xiri doonto xarumo badan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadahani oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in markii la furanayo shirkad ay waajib tahay in warqad ogolaansho ganacsi ah laga soo qaato gobolka banaadir taas oo lagu bixiyay $3,500 haddaba ma sax baa in dowladda ay xirto shirkad ay diiwaangelinteeda ku qaadatay lacag dhan $3,500 mase way celinaysaa lacagtii ay dhalinyarada ka qaadatay markay ganacsiga ka xirtana shaqo abuur miyay u samaynaysaa su'aalahani waa su'aalo u baahan in dowladda federaalka ay ka jawaabto dhanka kale maanta ayaa la filayaa in wafdi balaaran oo ka socda beesha caalamka ay gaaraan magaalada Kismaayo wafuudan ayaa magaalada Kismaayo kulan albaabada u xiran kula qaadan doona madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kulankan ayaa looga hadli doonaa arrimaha la xiriira ammaanka iyo arrimaha doorashada lagu wada in lagu qabto dalka Soomaaliya horaanta sanadka dambe beesha caalamka oo hore u bilowday in ay wada shaqayn la yeelato Axmed Madoobe ayaa maanta la filayaa in ay si buuxda oo wada jira u aqoonsadaan mudane Axmed Madoobe talaabadan ayaa soo afjaraysa diidmadii oo hore u diiday Farmaajo inuu aqoonsado dowladda Jubbaland iyo maamulka Axmed Madoobe Farmaajo iyo Xasan Cali Khayr ayaa waxa ay ku qasbanaan doonaan in wixii ka dambeeyay maanta ay si buuxda u aqoonsadaan ulana shaqeeyaan madaxweyne Axmed Madoobe sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa lagu khasbi doonaa in uu dhankiisa qoraal ka soo saaro kaas oo uu ku aqoonsan doono madaxweyne Axmed Madoobe iyo hoggaankiisa dhanka kale tababariye xulka qaranka Soomaaliya Bashiir Hayford ayaa iska casilay shaqadiisa sida ay shabakadda sirta media ka soo xigtay 5 weeks Hayford wuxuu sheegay in uu xilka isaga casilay nabadgelyo xumada iyo weerarada al-shabaab isla markaana uusan ku laaban doonin magaalada Muqdisho waxaa lagu xusuustaa Hayford in uu Soomaaliya u horseeday guushii ugu horeysay abid israreebka koobka adduunka taas oo ahayd guushii xulka Zimbabwe israreebka koobka adduunka 2022 ee Qatar bishii November 2019 Hayford oo hore tababaro ugu soo noqday xulka habeenka kubadda cagta dalka Ghana ayaa hore u saxiixay heshiis 2 sano ah oo tababaraha xulka qaranka Soomaaliya isagoo bedelay Maxamed Cabdullaahi Faryere bishii Maars 2019 tababarahan oo u dhashay dalka Ghana ayaa 2 jeer ku guuleystay koobka Premier League ee Ghana oo uu la qaaday Asante Kotoko sanadihii 2007-2008 iyo weliba Ashanti Gold SC xilli ciyaareedkii 2014 iyo 2015 dhanka kale waxaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan toogasho ka dhacday degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda Siigaale waxaana toogashada loo geystay mid ka mid ah dhalinyarada degmadaasi goobjoogyaal ku sugan halkuu dilka ka dhacaya waxay xaqiijiyeen in dabley huwaysan ay wiilka qaybaha sare jirkiisa rasaas kala dhaceen waxaana dilka kadib goobta isaga cararay dableydii dilka geysatay ma jirto ilaa ay hadda cid sheegatay mas'uuliyadda dilkaasi waxaana wararka qaar ay sheegayaan in wiilka la dilay uu ka mid ahaa maamulka degmada Hodan waxaana lagu magacaabi jiray Liibaan guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda sirta media wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda sirta media